bilyaneerada caalamka ayaa la sheegay inay sii badatay waqtiga lagu jiro safmarka lacagtoodu iyadoo dadka adduunka uga hantida badan ay lacagtooda ku korodhay 7.25%, taasi oo imka gaadhaysa baa la leeyahay 10.2 trilyan oo dollar. sidaa waxaa sheegay warbixin laga soo saaray banka Swiss Bank UBS oo toddobaadkani iyadu faallaysay arrimahaasi. laakiin Soomaali badan oo ganacsato yaryar ah COVID-19 ku dhibaato ay u geystay iyadoo dadka qurbaha jooga sida Yurub oo kale oo lacag taxawila iyaguna ay dhibaatooyin kala kulmeen xagga shaqada oo la leeyahay way yaraanaysaa wadamo badan. haddaba maxay waajahayaan ganacsatada Soomaalidu gudaha iyo dibadba? agaasimaha Dahabshiil Group Cabdirashiid Dahabshiil ayaan xalay tolo weydiiyay su'aal ku saabsan arrinkaasi. horta waxyaalaha ugu waaweyn ee ganacsatada haddaan Dahabshiil lahayn aanu aragnay waxa weeyaan isu gudubkii iyo socdaaladii dhibaatada ugu weyn horta halkaas ka dhacday. waayo qofku markuu iminka socdaal qabto wadamo badan shuruuday dadkii ku xidheen in xanuunkan COVID-19 aad testkiisa qaadatid ama aad warqad haysatid inaanu xanuunkaas kugu jirin. kadib markaad wadankii ka tagtid wadamada qaar 2 week ayay soo rogeen inaad guri ku xidhnaatid ama aad hudheel ku xidhnaatid. marka qofka baac mushtariga waad garanaysaa oo waqtigiisu waa wax kooban. haddii wadan aad ka tagtid oo 2 week lagu xidho mid kale aad ka tagtid oo 2 week lagu xidho ugu yaraan bil kharash iyo lacag baa kaaga baxaysa. marka taa waxaan u aragnaa ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo Dahabshiil ama shirkadaha kale isticmaala inay noloshoodii aad u adkaysay. waxyaalaha kale ee keentana waxaa kamid ah waxyaalaha asaasi oo badan inay ama qaali noqdeen ama ay yaraadeen. marka runtii isu gudubka ganacsatada badankeeda xidhay oo la fudeed u ahayd laakiin iminka ay xanuunkan u sii adkeeyay. Cabdirashiid, shalay waxaa la soo saaray bankiga RBS ee dalka Switzerland oo runtii ah meelaha hantida dad kale lagu qiyaaso. waxaa la yidhi dadkii bilyaneerka ah ee caalamka 25% ayaaba hantidooda sii korodhay. waxay soo qaateen shirkadda Amazon oo kale iyo ragga kale bilyaneerka ah. Dahabshiil oo kale ma la odhan karaa iyagana COVID-ka waa laga yaabaa inuu lacag badan u sii dhalay? runtii bidhaanow ilaahay maadi weeyaan horta haddii wixii sii kordhaaba ama noo kordhaaba dadka Soomaaliyeed bay u kordheen. qasab adduunku isbedel badan baa ku dhacay. dad waxyaalaha dhaqaalaha ama bangiyada adduunka ka hadashay qaarna waxbaa u kordhay qaarna way ka dhaceen. laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in macaamiisha meel ay joogaanba loo adeego oo waxyaalaha anagu isku daynaa dahab ama online payment inaan u samayno ama lacagta degdeg ugu bixino ama ganacsatadu meel ay joogaanba inay gaadho ama inay macaamiisha service ugu fiican ay naga helaan. mar walba anaga taasaan noo aadan waayo dadkeenu markay guuleystaan ayaan haddaan u nahay Dahabshiil ama dhammaan shirkadaha Dahabshiil hoos yimaada dahab iyo Somtel iyo bankigu ka mid yahay anagu markaas ay guul noo tahay waayo ummadaan ka mid nahay ummadda shirkadda u shaqeysa ummadda isticmaasha qof walba af Soomaali ku hadlaya meel adduunka joogaba runtii uu isticmaalaa. marka waxyaalahaas farxad noo ah. Cabdirashiid, waxaan kusoo gabagabaynayaa sidaad sheegtay waxaad jeceshiin in dadkii ay guuleystaan in wax la qabto idinkoo kaliya maaha Dahabshiil oo kaliya maaha shirkado kale Soomaali waaweyn baa jira. marka mar kastaba waxaad moodaa in la idin majeerto oo la yiraahdo maxay ku soo celinayaan mujtamacii maxay bulshada u qabanayaan. kulli markaas labada dhanba waxa laga yaabaa idinkuna inaad dadaalaysaan dadkina ay leeyihiin dadaalkii halkii la rabay ma gaadhsiisna. marka maxaad leedahay imka Dahabshiil ahaan maxaa aad qabanaysaane ama mashaariic ah ama khayriyaad ah ama maxaa wadaaneed halkan ka tilmaami karaysa? runtii bidhaanow su-aashaas waa su-aal sax ah. inta aanu jirro ama Dahabshiil Group jiro qasab wadankaanu ku noolahay dadka aanu la noolahay waa inaanu noloshooda kala duwan ka qayb qaadanaa. waxaan xusuustaa 1990kii BBC-da imika aynu ka hadlayno habeenkii baa la dhageysan jiray idaacadda waa la xidhay waxaanu kharashkeeda anaga bixinayna waayo baan u bixinaynaa dadka qurbaad jooga in wadankii ogaadaan baan dooraynay. satellite service baa bariga lagu dhageysan jiray. baahida dadkeenu way kala duwan tahay. iminka scholarship baanu ka qayb qaadanaa caafimaadkaanu ka qayb qaadanaa marar waxaa jiray dhibaatooyin ay kala duwan ka jira wadanka gudaheeda. marka mar walba oo nolosha aanu ku noolahay inaanu hadday tahay maaragtay dadka baahan aanu caawino hadday tahay meelaha shaqo looga baahan yahay. iminka qayb ka mid ah Dahabshiil baa jirto runtii aan faa'iido badan ba ka helin oo microfinance samaysa oo $200, $300, $1,000 dadka aad dhaqaalahoodu hooseysa amaahisa. waxyaalaha waxaan ugu talagalnay inay dadka shaqo u abuurto inuu qofku dadkiisa caawiyo.